gabay god madow muslim iyo qofkii aan ahayn muumin hadal gaban munaafaqada ruuxii yaqaan ama masiix sheegta ama yiri mulkiiluhu ma jiro maamulaha unku ee muxammadiintu la yimi moogtanu la taagan shaydaan miciisi oo intii necab masaajida mawlaha ninkii caasiye diida maarinkiisa miisaan kastuu leeyihiyo eray macaankiisa maskax maal kastoo lagu dhihiyo mansayahan dooda munsood qurxooniyo wuxuu weedha maalabeeyo masraxyada wuxuu muusigiyo heesa ugu miiso oo ay malaayiin dad ihi muhashadii qaado oy wada ma jirtaan khalqiga mooge idilkiisu si kastuu u maal badan yaho galabba meel joogo murwa quruxsan maas iyo wuxuu munad wada haysto si kastuu mariikh ugu kaco migaga u raaco maqaaliyo haddii uu ka tagay bugag lagu maago ama uu mas-uul sare ahaa madax Maraykaana oo maagitaankiyo yaqaan muquunin loo meedho si kastuu u maanfuran yuhu muhindisood reebo mugweynan kastoo loo hayiyo macallimayntiisa si kastuu u magac dheeryaho dunidu maamuusto si kastuu Mandeliyo u yahay Gandhi iyo Marco mar haddaanu maarayn karayn malaga soo aaday oo uu macbuudkii lahaa qariyay muuqiisa halkaan laga maqnaanayn hadduu maanta jiro miigal god madow hadduu kaga dhaco mabacdu leefayso mar hadduu cada mudanayo martu duubanayso dhex maquurka moolnaadha iyo muriyo deebaqda masas iyo hadday cunahayaan mici abeesaadku mudacayiyo haddii lagu mudmudo iyo mindil dhuuban maxdin iyo haddii lagu masaxo dhagax iyo miiqmiiqan jirkiisii hadduu mookhalmo midabki doorsoomay maruuryood haddii uu muto malaxdu dhiiqayso miciin iyo haddii aanu jirin maare iyo moose malihiisi beenaad hadduu maadhu qaaban waayey majaadhaha ibliiskii uu hayanaa u ku riiday meeshan maqaamkiisa meel lagu xusiyo madalka sheegnaanta madxafiyadu maxay tarahayaan iyo makaatiibtu madxafiyadu maxay tarahayaan iyo makaatiibtu waa hadal tixayntii Idris Makiinad